shirkan sanadlaha ee shirka beesha gari Gombe waxaa soo qabanqaabiyey dhalinyar dal iyo dibad joogto Kenya, Soomaaliya, Ethiopia, maaragtay qurbaha meel kastaba dunida ay ka joogaan ayaa si sharaf leh u soo qabanqaabiyey waa shir sanadlaha oo dhaco haddana waxaa la marayaa sanadkiisii afaraad insha Allah shirkan madashiisa sanadkan la iskugu yeeray wuxuu ka hadlayaa in beesha gari Gombe meel kastoo dunida ka joogto ay u dirto ummadda Soomaaliyeed ee walaalahayn meel kastoo joogaan Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, Djibouti, dal iyo dibad inay ugu baaqaan nabad wadajir iyo walaaltinimo intaa ayaa ugu baaqaynaa haddii la dhaho English loo bedelo the fourth annual Gari Gombe Assembly uu yahay ajendagiisa calling for peace and unity among the Somali community, building bridges, ending conflicts ayaa la dhahaa intaa ayuu mawduuciisa yahay waxaan u jeedinaynaa walaalihiin Soomaali aan la qaybsanaynaa farxad kalkaalin walaaltinimo iyo baaq nabadeed ayaan u daraynaa insha Allah intaa ayuu mawduuca ugu weyn uu ku saabsan yahay inta kale waa xaflad oo sanadle ahayd oo soo jirtay ilaa haddana socon doonto marka waxaan idin leeyahay soo dhawaada si sharaf leh ku soo dhawaada midnimada aan ka shaqeyno jiigay ha noolaa gacmaha kor u taago jiigay aadu baasay xaqiiq forum Mr. County aadu baasay hay'adda haddaba aan isla dhegeysanno madaxda wadada dowladda nashaha aan ilaaliyo aan isla dhegeysanno kuwana aan yeelano si aan madaxda uga dardaarno qodobadana wax uga faa'iidno okay waxaan ku soo dhaweynayaa Ahmed Maxamed Caafo midda koobana wasiya kaw mashruuca soo halkan soo tiri akhyaartana wadnada wadamameedka kulligeen mashallah halkan waa la soo camiray salaan kadib caawa farxadii ah inaan kala soo qayb galo madashan ee reerkan ay u yeedeen howlkan uu ku camalan yahay farxad guud bay tahay intaasna bay tahay inta qabanqaabisana aad u mahadsan yihiin waxaan ogahay dhalinyaro isxilqaanto oo reerkani ah oo mar walba u taagan midnimada iyo macaanka beeshani gari inay jirto ku magacaaban GYC aad baan u faraya taas waan ka maqaynaya farxad inay tahayna waan sheegay waana ogaadanayaa waa wax beesho mudan in badan in lagu daydo horeeraha kale ee degan wanjeer ama waqooyi bari bay ku daydaan ayay mudan tahay waxaan leeyahay midnimadiina waxaa weeye midnimada wajeer waa midnimada ogaadeen waa midnimada waqooyi bari waxaan kala ogaadinayaa baaqa nabadeynta oo loo dirayo dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel waliba meesha ku jirta dadka caalamiga taayna aad u weyn insha Allah waxaan kaloo sheegayaa oo mataqaanaa leeyahay annagu haddaynu nahay xaafadan reer wajeer south ama jifo hoose ha noqoto ama mid kor ha noqoto waxaa mar walba laga rabaa ama aan muhiim ay tahay wada tashi guud inuu dhaco inta aysan siyaasaddu
iyo waqtiga doorashadu la gaarin in midnimada iyo macaanka iyo wada shaqaynta inaan hal meel ku wadno in laga shaqeeya waxay mudan tahay waqtigan hadda aan joogno ay mudan tahay mar hadduu kuuraha dhaco codka uu dhaco wax badan baa halaali kara intaa ka hore midnimadii waa noo bilaawdeen annagana waa idinku dayanaynaa insha allah madaxdana way ku dayanaysaa kudayasho mudan insha allah midda walaalkay weerar gabana ka dhawaajiyey waa sax xaq baynu leenahay Wajeer South xaq baynu ku leenahay Wajeer County maamulka hadda jiro waa mid jira horey buu u jiray waa markii saddexaad laakiin talada iyo wanaaggeeda waxay nala siman tahay intuusan doorashada dhicin in aan waddankan waa waddan siyaasadeed codkanaga aan cad ku goosan codkanaga aan cad ku goosan insha allah gabana ciddii rabtana waa wadhowdahay ee 2 sano baa ka hadlay ha isdiyaariyaan wixii madaxa ogaadeen oo reer Wajeer South kursigaasi waa kursi mudan in la tago anigoo ku dhayo waddadii anaa idin jeexay waa highway la mari karo hadda oo aan lahayn bumps aan lahayn wax ku hagayo wax ku reebaya aysan jirin waxyaroo isku aad u baahan tahay ciddii nagamida waxaa badan ka mida oo ogaadeyna waxaan ku bogaadinayaa mar walba in gabadha la raadsado waxa ugu miibsan oo la raadsado waddankan oo kursi siyaasadeed ah waa madaxweynaha Kenya waxa ku xiga waa gabanaha ee kawntiyada marka in raadsado waa ku bogaadinayaa mar walba hadday nala siman tahay talada caawa inta ka bilaaban karta waynu sii wadi karnaa insha allah horena waa u soo wadnay jirar baa ka dhacay KICC oo Wajeer ka dhacay oo Gaaris ka dhacay in arrintaas bedeliyo u baahan tahay haddii arrintaa iyada aan ka dhiigino ka mira dhalino aan aad u dhafaburno waxaan aaminsanahay cabashadan joogtada ah inay naga dhammaan doonto insha allah marka waxaan kusoo gunaanadayaa bogaalin shirkan aan bogaalinayo kii lagu guraalo Allah ka dhigo kii midnimo keena oo qoyskan hoose keena Allah ka dhigo mid kore ogaadeen midnimadiisa keena Allah ka dhigo mid kore Wajeer midnimadiisa macaankiisa keena Allah ka dhigo ilaahay Kenya iyo Soomaaliyeedna aad ugu maasantiin intaas aan kusoo gudbina bilaa jiro. Assalaamu calaykum.